Ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa fashiliyay weerar gaadmo ah oo ay doonayeen kooxda khawaariijta inay ku soo qaadaan deegaanadii dhowaan laga xoreeyay, gaar ahaan deegaanka Biibi, Harboole, Mido iyo deegaanka Buulaxaaji. Waxaana jab xooggan la gaarsiiyey maleesiyaadka khawaariijta Al-shabaab ee weerarka soo qaaday. Saraakiisha ciidanka hogaaminaysa ayaa warbaahinta qaranka waxay u sheegeen in ka badan 50 maleesiyaad ah ay ku toogteen weerarkaasi, islamarkaasina ay gacanta ku hayaan horjoogayaal ka tirsan kooxda khawaariijta Al-shabaab ee hogaaminayay weerarka gaadmada. Dadka deegaanka Biibi, Harboole iyo Mido oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa dhankooda waxa ay soo dhaweeyeen howlgalka maanta lagu jibiyey kooxda khawaariijta Al-shabaab, iyagoona sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in jab xooggan la gaarsiiyo kooxda khawaariijta Al-shabaab, waxayna ku ammaaneen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland guulaha waaweyn iyo weliba nabadda ay ku soo dabaaleen deegaanadii dhowaan laga xoreeyay kooxda khawaariijta Al-shabaab oo dhibaato ba'an ku hayay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanadaasi. walaale waa okay, anaga waxaan ku sugannahay horta deegaanka Buulaxaaj baan ku sugannahay. dadka deegaanka meesha degan ayaa nahay. saaka aroorti waa berigo baa un xabad iyo mataqaanaa iyo madafiicd weyn baa saaka aan la kulannay. kadib ninkii khawaariijda dee meesha weerar bay ahaayeen, way soo weerareen meesha ciidamada ay deganayeen Jubbaland bay soo weerareen. kadibna ilaahay mahadiisaniyo nimankii ayaga ahaa jab xun baa ku dhacay, oo waxa ku dhacay wax micnihii maanta la qiyaasi kara ma ahan. waa tan ilaa hadda farxadkoodii iyo mataqaanaa waxaa lagu daba taagan yahay, iyo wixii xeeraadigoodii baa la ceersanayaa. hoob fara badan oo mataqaanaa oon caadi ahaynna waa laga qabsaday. niman fara badan oo meesha la laayin kulley waad arki doontaan miidiyahana lasoo dhigi doona, waad arki doontaan Abdullaahi idmo. ilaa haddana waa lagu raad taagan yahay. weli intaasaan micnihii hadda inoo maraysaa, shaqadan weli way socotaa. ciidamadana aad bay u mahadsan yihiin geesiyaasha, ayagana weli way ku daba taagan yihiin. Waan gartay xilliga ay weerarka gaadmada soo qaadi rabeen khawaariijtu xilliga ahayd. aroortii saakay salaada subax markii la tukaday, oo salaada la tukaday waa berigii agtiisa salaada intii waaga beri dhexdooda ahayd. xilligaasay soo weerareen meesha iyada ah. kadibna haddii waxaa ku dhacday waa xaalad maanta lama qiyaasi karo, wax la sheegi kara ma ahan. nimanka geesiyaasha ciidamada aad baan guul ugu rajaynayaa, khaasatan madaxweynaha Axmed Maxamed Islaam. waxaan doonaynaa annaga haddaan shacabkii deegaanka aan nahay inaan nabad ku naaloonno, in mataqaanaa khawaariijka nagala dulqaado. wax badan bay na gumaysteen, dhibaato badan bay noo geysteen, xoolihii bay naga aruursan jireen. ilaaha mahadle hadda ciidamada intay meesha soo degeen aad baan u nisannay, xoolaheenni baa noo badbaaday. wax dhibaataa ciidamada kalama kulanno, wax micnihii matacagajugleen aan kama kulanno. xaggeed ka imaadeen lama yidhaahdo. deegaankeenni iyo xoolaheenni baan si nabad ah aan u joognaa. ilaaha mahadlena aad baan ugu rajaynaynaa ciidamadaas inay guul helaan. ka deegaan ahaan khawaariijta Al-shabaab si xun baa loo jabiyey. jabkoodana waan ku faraxsannahay. dadka aad bay u dhibaateeyaan. xuquuqul insaan waxay garanayaan ma laha, ciday u aabayeelaan waayeelay caruur iyo ma jirto. dowladda Jubbaland way ku mahadsan tahay howlgallada ay sameeyeen, waana soo dhaweynaa 100%. aad bay ugu mahadsan yihiin dowladda Jubbaland. ku dhawaad ilaa 50 meelahaasna aad bay u daadsanayeen wadooyinka khawaariijta Al-shabaab. marka hadda dowladda federaalka iyo dowladda Jubbaland baa iska leh, ayagana iska kaashadeen. aad bay ugu mahadsan yihiin. Qadar Imaan Dhaqane, warbaahinta qaranka, Kismaayo.